malabka faa'iidadiisu ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo. Ilaahay ayaa quraanka kariimka ah noogu sheegay in malabku faa'iido caafimaad iyo mid daawoba u yahay bini'aadamka. Haddii aynu isku dayno xanuunada lagu daweeyo reer galbeedkuna ay ku waafaqsan yihiin muslimiinta waxaa ka mid ah inuu yahay nafaqo qaali ah ayna cuni karaan dad waaweyn iyo kuwa yaryarba. Calooshana kuma raago oo dhaqso ayay calooshu u shiidaa, jidhkana si sahlan ayuu u nuugaa, isla markaana wareegga dhiigga ayuu gaadhaa. Malabku wuxuu buuxiyaa booska tamarta jidhka bini'aadamku u baahan yahay oo dhan. Malabku wuxuu xoojiyaa murqaha, wadnaha. Dadka joogteeyaana way yartahay halistooda ku aadan hawlgabka wadnaha ama wadne istaag. Malabku wuxuu aad u nidaamiyaa dhiigkarka, wuxuuna jidhka ku badiyaa birta, maadada loo yaqaan hemoglobin. Malabku wuxuu door weyn u ka ciyaaraa korniinka ilmaha iyo xifdintooda. Xanuunada lagu daweeyo isticmaalka malabka waxaa ka mid ah xanuunka gaaska oo Soomaalida aad ugu badan, beer xanuunka, neerfaha, hurdo la'aanta, kansarka noocyadiisa, cudurrada maqaarka, shuban dhiigga, dhiig yarida, rheumatismka iyo lafa xanuunka, timo daadashada, caabuqa kaadi haysta, ilka xanuunka, hargabka, calool qasanka, dheefshiid xumada, daalka, af urka, madax xanuunka iyo inuu sare u qaado difaaca jidhka. Intaas iyo in ka badanba isticmaalka malabku waa uu wanaajiyaa